isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Sanaag ayaa maanta xariga ka jaray dugsi cusub oo loogu magac daray dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Shimbibiris School ee magaalada Ceergabo waxaana munaasabad ballaadhan oo lagu daafurayay dugsiga Shimbibiris School ee magaalada Ceergabo goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta maamulka heer gobol madax dhaqameed isugu jira salaadiin cuqaal waayeel waxgarad aqoon-yahano dhalinyaro haween waalidiin arday iyo marti sharaf kale waxa ugu horreynba madashaasi ka hadlay mulkiilaha dugsiyada Shimbibiris School ee magaalada Ceergabo Nuruddin Ahmed Yusuf ayaa ku dheeraaday marxaladii kala duwanaa iyo fakarka ka dhashay waxaana uu sidoo kale xusay inay maanta daafurayaan dugsigan cusub isla markaana ay ku bilaabi doonaan arday inta badan isugu jirta agoomaha kuwa ka dhashay qoysaska danyarta iyo darbi jiifka waxaana uu sidoo kale xusay inay adeegsan doonaan tiknoolajiyadda casriga ee haatan laga adeegsado dunida waxaana uu sidoo kale ugu baaqay shacbigweynaha ku dhaqan caasimadda gobolka Sanaag ee Ceergabo inay soo buux dhaafiyaan dugsigan oo uu sheegay inuu hayo adeegyo cusub waxa iyaguna dhammaantood madashaasi ka hadlay Professor Cabdalla Sheekh Maxamed iyo Maxamed Xuseen Farjar Mataan iyo Sheekh Awil Faatax oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland iyo isku duwaha wasaaradda beeraha ee gobolka Sanaag Maxamed Yuusuf Deger ayaa iyaguna dhammaantood si isku mid ah u soo dhaweeyay dugsigan cusub waxa iyaguna sidoo kale dhammaantood hadalka isaga daba maray qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin Suldaan Ismaaciil Nuur Wacays iyo Suldaan Cali Yuusuf Cabdi Badacas iyo suldaanka guud ee mandaqada gobolka Sanaag Suldaan Rashiid Suldaan Cali Ducaale iyo Maxamed Cali Dheere ayaa iyaguna dhammaantood si isku mid ah u soo dhaweeyay dugsigan cusub ee Shimbibiris School waxaana ay shacbigweynaha reer Sanaag ugu baaqeen madax dhaqameedku inuu dugsigan yahay dugsi cusub loona baahan yahay in la soo buux dhaafiyo waxa ugu dambeyntii munaasabadan ballaadhan soo afmeeray isku duwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Sanaag Aniis Saalax Xaaji Xasan ayaa markii uu horeysay daaha ka qaaday in guud ahaanba xaaladda waxbarasho ee gobolka Sanaag ay marayso halkii ugu sareysay waxaana uu sidoo kale xusay inuu soo dhaweynayo dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Shimbibiris School isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Sanaag Aniis Saalax Xaaji Xasan ayaa intaa kadib xariga ka jaray dugsigaasi Shimbibiris waa cidhifka ugu dheer buuraha surad ama Soomaaliyaba waxayna si levelka badda ka sareysaa 7927 feet waxaynu jecelnahay inay Somaliland iyaduna Shimbibiris ka sareyso 7927 feet waxbarashadiisuna ay gaadho cidhifka ugu sareeya Somaliland ama Soomaaliya ama caalamka 14 ahna subax jimcaha 12 maalinimo waxaan joognaa magaalada Ceergabo waxaan furaynaa maanta oon ka jaray xariga dugsiga hoose dhexe ee sare ee Shimbibiris ee magaalada Ceergabo bismillaahir rahmaanir dugsiga Shimbibiris School ee magaalada Ceergabo ayaa loogu magac daray cidhifka ugu sareeya buuraha surud ee ugu dheer guud ahaan buuralada ku yaala dalka Soomaaliya Cabdi Naasir Khalid Saciid Somali Channel magaalada Ceergabo